بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada saxaafadda shaqaalaha baarlamaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye anigu waxaan aaminsanahay hay-addan inay tahay hay-ad muhiim ah wasaaradda oo ku ammaanayaa qorsheynta inay sharciga hay-adda lagu abuurayo ama lagu sameeyo inay soo hordhigto baarlamaanka waddankan dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah shaqo abuur la-aanta dalka ka jirta oo kumanaan dhalinyaro ah oo waxbartaa jira haddana markay waxbartaan meel ay u shaqo tagaan ma laha amniga dalka xataa wax badan bay ka tari lahayd waxaan qabaa marka hay-addan haddii la sameeyo isbeddel weyn baa dalkao dhan ku imaan doono oo ah in dalka uu hormaro oo dhanka xataa wax soo saarka haddayna ahaan lahayd beeraleyda iyo hadday ahaan lahayd kalluumaysatada in iyagana ay dhiirigelin u noqoto oo kambaniyaasha caalamiga ah multinational companieska inay dalka kusoo dhiiradaan iyo in aan sameyno xataa small industries dalka wax soo saarkooda lagu sameynayo soomaaliya hadda dhibta haysata wax walba dibadda uga yimaadaan oo importi ahaan bay u yimaadaan annagoo awoodi karna inaan ka faa'iidaysano waddamada dariska ah oo purchase powerkooda aada u badan yahay oo populationkooda aada u badan yahay waxa annaga soo saarnana aan u beecgeyn karno marka mudane wasiir horta waa ku ammaanan tahay su-aasha aan rabo maadaama akhrinta koowaad ay tahay waxay tahay hay-addaanu sidee wax uga bedeli kartaa shaqo la-aanta baahsan ee dalka ka jirto oo kumanaan dhalinyaro ah haysata marka su-aasheeda waa taas waa mahadsantiin